Dowladda Turkiga waxay si toos ah u sheegtay in Soomaaliya ay geynayso qalab loogu talagalay in lagu sifeeyo shidaalka Soomaaliya. Arrintan waxay fududeynaysaa in aanay waqti badan qaadan marka la eego dhanka shidaalka Soomaaliya ee Turkiga uu soo saarayo, taas oo haatanba howshiisa ay ku guda jiraan maraakiibta Ankara ay u soo dirtay Soomaaliya. Ilo wareedyo kala duwan ayaa warbaahinta Xuraasi waxay u sheegeen in mas'uuliyiin ka tirsan dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga arrintan ay ka wada xaajoodeen, iyagoona ugu dambeyn go'aan ku gaaray in la soo saaro shidaalka Soomaaliya isla markaana qalabka sifeynta la dhigo goobo kala duwan. Ciidan ka tirsan kuwa Turkiga ee aadka u hubeysan tababarka sare haysta iyo ciidamo kale oo Soomaali ah oo dalkaas lagu tababaray ayaa la geyn doonaa goobaha qalabkaas lagu xiri doono oo ilaa hadda aan la shaacin. Waxay soo badan tahay goobo ka tirsan deegaanada maamulada Hirshabelle iyo Galmudug, maadaama dhanka iyo Galmudug laga soo saarayo shidaalka Soomaaliya la doonayo in ay xilligan ka faa'iideysato. Turkiga waxa uu sheegay in gacanta siyaasadeed ee dowladdaas wadahadalka xubnaha mucaaradka iyo dowladda ay ku wado in ay dhinaca kale gacanta kale ku qaban doonto soo saarka kheyraadka iyo macaadinta kale ee muhiimka ee dhanka Soomaaliya, taas oo ku xusan heshiiskii ay kol hore wada galeen Muqdisho iyo Ankara, isla markaana dhigayay in labada dowladood ay iska kaashadaan arrimahan si loo horumariyo. Sargaal sare oo ka tirsan dhinaca iyo dowladda Turkiga waxa uu tilmaamay in soo saarka kheyraadka dabiiciga aanay ahayn arrin sahlan, laakiin dowladda Turkigu ay xoogga saartay sidii maraakiibteeda tirabeelka ah ee Soomaaliya ku sugan ee isugu jira kuwa qaadaya qalabka, kuwa qodaya shidaalka iyo maraakiibta kale ee militariga adeegsanayaan si loo ilaaliyo nabadgelyada dhanka xeebaha iyo weliba badweynta, maadaama ay jiraan wax walba oo suuragal ka dhigi kara cabsi darteed arrintaasi in ay keeni karto in dowladda Turkigu ay bilowdo dhaqdhaqaaqyo xooggan oo dhinaca badda. Diyaarado nooca qumaatiga u kaca oo ay Turkigu leeyihiin ayaa la keenay Muqdisho, iyadoona wararka soo baxaya ay tilmaamayaan in ujeedka uu yahay in qayb weyn ay ka qaataan howlgallada dhulka iyo sidoo kale dhanka badda oo maraakiibta ay doonayaan in diyaaradahaasi ay xoojiyaan. Turkiga ayaa Soomaaliya kol hore la galay heshiis weyn oo la xiriira soo saarka macaadinta iyo kheyraadka ku jira dhanka Soomaaliya. Muddooyinkii u dambeeyay waxaa la isweydiinayay halka lagu sifeyn doono, ma Turkiga ayaa loo qaadi doonaa, ma dalal kale ayaa la geyn doonaa, mise gudaha Soomaaliya ayaa laga sameyn doonaa warshado si kumeel gaara usii shaqeeya, kuwaas oo sifeeya fuustooyinka ugu horeeya ee shidaal ee dhanka Soomaaliya laga helo. Waxaase markaa soo baxaya warbixino sheegaya in Ankara ay go'aansatay in goobaha shidaalka laga qodayo iyo meelaha lagu sifeynayo in aanay la kala fogeyn, maadaama xasaradaha caalamka gaar ahaan Bariga Dhexe ay saameysay isu socodka guud ahaan caalamka marka la eego dhanka badda, taasoo keenaysa in haddii la dhaho waa la qaadaya in waqti badan halkaasuu ku lumo, taasina ay abuuri karto in dib u dhacaas uu keeno culays dhanka bulshada. Ilo muhiim ah ayaa inoo sheegay in ay jiraan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira dhankaasi, iyadoona saraakiisha mas'uuliyiinta iyo xubnahanba ay bilaabeen in la sameeyo dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira arrimaha hadda socda, waana tan keentay in mas'uuliyiinta iyo xubnahanba ay si guud iyo si gaar ahaaneed ay uga baaraandegaan qorshaha iyo dadaalada kala duwan ee hadda soconaya. Xubin sare oo ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya waxa uu dhankiisa tilmaamay in abaabulkan iyo qorshahan uu yahay mid ay ku adkeysanayso Soomaaliya, maadaama sahankii ugu horeeyay ee la sameeyey ay muujiyaan dadaalo kala duwan oo dheeraad ah in loo geli karo in la soo saaro shidaal iyo macaadin fara badan oo dalka deeqi kara. Taasi waxay keentay in Turkiga uu soo qalab qaato qorshaha qodista shidaalka Soomaaliya, oo ugu dambeyn keentay in mas'uuliyiinta Ankara in diiradda ay saaraan qaabka ugu fudud arrimahaasi loo gaari karo waa haddii waqtiga dhow ee dowladdaas ay qorsheysay inay ku soo saarto natiijo baariseedka shidaalka Soomaaliya ee kol hore la helay iyo in bannaanka lasoo dhigo, kadibna la kala saaro, la sifeeyo, iyadoona kadib shidaalkaasi dunida marka loo bandhigo fursado kala duwan ay u noqon doonto dhanka Soomaaliya. Lacagaha ayaa la sheegay in loo adeegsan doono dib u dhiska dalka iyo in la dhiso kaabayaal muhiim ah oo dhanka macaadinta iyo shidaalka Soomaaliya baaristooda loo adeegsan karo, sida ku xusan heshiiska ay wada galeen Muqdisho iyo Ankara ee kol hore dhacay. wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha
baahinteena tan xigta warbaahinta xuraansi ku daawo waad ku mahadsantahay daawashada iyo la socodka wararkayaga.